بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين shirkan jirayd wuxuu ku saabsan yahay magacaabista maanta ra'iisul wasaaraha oo magacaabay golihiisa wasiirada annaga hadaan nahay maxaa la lahay qowmiyadan digil imiriflaha waxaan wax ku qayb sideedaba waxa wax lagu qaybsanayay awood qaybsiga aan wax ku qaybsanaynay habkii loo qaybsanayay maxaa la kalama tashan xildhibaanada waxaad arkaysaa liiska wasiirka markaa fiirisid xubnihii annaga aan lahayn iyo wasiiradii iyo habkii loo qaybsan lahaa si qaldan ayuu u magacaabay ninkan lama tashan xildhibaanadii lama tashanin maxaa la lahay gudoonkii baarlamaanka xataa gudoomiyaha baarlamaanka asaga wixii federaalka mas'uul ugu ah qowmiyadan digil imiriflo awood qaybsi ahaan xataa kalama tashanin waxa waaye asaga kaligiisa iyo qolooyin dana gaar ah ka wada dhaxeeyaan oo ayay soo tashteen liisa la soo sameeyay liiskaasna liis noo cunto maayo ma bahab Soomaali awood qaybsi ay 4.5 wax ku qaybsatay 4.5 in wax lagu qaybsaday ahayd laguma qaybsanin wasiirid oo aan tayo lahayn ayuu si qowmiyadan digil imiriflah taasaan ka soo horjeednaa annaga waxaan matalaynaa waa shacabkeena waa shacabkii hadda waa ka dhidhiyeen arrimahan hadda liiska la sameeyay shacabkii aan haysto waxay leeyihiin maxaa la lahay annaga nooma cuntumayso arintan uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha ilaa 2020 laga gaarayna awood qaybsi wax lagu qaybsadaa awood qaybsi laguma qaybsanin qabiiladana lama tashanin xildhibaanada xataa lama tashanin qaarkood xataa waxa loo diiday albaabkiisa inay ka galaan waxa jirto xataa gudoomiyihii baarlamaanka oo ahaa awoodii labaad ee Soomaaliya ugu sareysay xataa lama tashanin markan ra'iisul wasaaraha arintan waa ku degdegay liiska wasiiradana waa aragnay uu soo saaray annaga hadda waxaan ku mashquulsanaa annaga xildhibaano badan Baydhabo aan joognaa xaalad adag ka jirta Baydhabo maanta waxa soo gaaray 320 qof oo ka soo barakacay deegaano shabeellada hoose kamid ah diinsoor iyo qasax dheere dadkaasaan aan ku dhex jirnaa dadka xataa oo asaga wasiirnimada oo liiska uu ku soo daray dad u qalmo maaha dad aqoonteedana lamaha qof walba professionkiisa in lagu xishmeeyo ahayd haddana sideedaba maxaa la lahay wasaaraddan maaliyadda waxa iska lahaa waxa waaye qowmiyadan digil imirifla iska lahaa qofku doono oo xildhibaana u qalmo aqoonteeda in la siiyay ahayd waxa maxaa la lahay lama siinin wasiir qolooyinka kale waxa waaye wasiir waxaad arkaysaa qabiilo badan oo wasiiro loo kordhiyay arkaysaa dadkii say wax wada qaybsadeen waxa waaye waxay wax ku wada qaybsadeen markay deegaanadooda joogeen awood qaybsiga ku qaybsadeen awood qaybsiga ay ku qaybsadeen looma tixgelinin 4.5 kii looma tixgelinin awood qaybsiga looma tixgelinin markaan liiskaas oo hadda la soo saaray golahaas wasiirada annaga waa ka soo horjeednaa ka qowmiyad ahaan aniga kaligayga maaha aniga waxaan ahay afayeen oo 61 xildhibaan oo ka socda maxaa la lahay qowmiyada digil imiriflaha oo hadda shir u socda markaan wixii jawaab ah waxaan bixinaynaa maalintii la horkeeno golaha shacabka ayaan ka bixinaynaa arintaas waa arin lagu degdegay haddana dadka la magacaabay dad oo xaaladda hadda taagan wadankan dhibaatadiisa samata bixin karna maaha ummadan waxay u baahan tahay badbaadi u baahan tahay maxaa waa dad lagu keenay dad ay maxaa la lahay ay xiriir wada lahaayeen ama saaxiib ay ahaayeen ama isku jufo yihiin ama ay soo dhow yihiin ayaa waxa iska dambeeyay waxa waa xaaladaas annaga ma anfacayso inaan qaadano waan suugaynaa golaha shacabkan ku suugaynaa waa qaadacnay hadaan nahay xildhibaanada qowmiyada digil imirifle jawaab kululna waa ka bixin doonaa haddana waxaan ku suugaynaa maalinta ansixinta ayuu arki doonaa jawaabta uu ka heli doona cid uu la tashtay mala xildhibaan lama tash xildhibaanada qaarkood albaabkiisa ka soo reebay dadka ay yaqaanaan oo asaga is garanayaan ma dadka xataa albaabkiisa ma galeenin awlaaba ku qaldan anaga waxaan u maleynaa in ummadan uu samata bixinayo ra'iisul wasaaraha uma ekanin samata bixinayo waa nin jeclaysi dadku keenay waay